Assalaamu calaykum. Maxaa ay tahay hantida aad haysatay aadan weyn, ama hantida aynu dhammaanteen ka simannahay aynu aweyn laakiin inaynu haysanno? Kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Sida aynu wada ognahay, qof kasta oo innaga inaga mid ah ama qof kasta oo ka mid ah bini'aadanka waxa uu leeyahay waqti. Waqtigaas oo wax ku qabsado, ku shaqaysto, waxna ku barto. Waqtigu waa waxa ugu qaalisan oo Ilaahay ina siiyey ama uu siiyey Ilaahay bini'aadanka. Waayo waqtigu marka la soo ururiyo waa qofka cumrigiisa. Qofka cumrigiisa ee gaadhaya 80 ama qofka dhalinyarada ama weynaanaya, waxa uu ku weynaanaya kuna socdaa waa waqtiga ama waqtiga iyo zamanada soo maraya. Sababta aynu u leenahay qofku hantida uu haystay aan ogeyn waa waqtiga, waa sababtaas. Waayo waqtigu qofka isaga ayaa gacantiisa ugu jira. Waqtiga qofka ayaa maamula sida uu doono ama sida uga faa'iideysta ayuu noqonayaa. Waqtigu waa hanti aad haysto laakiin aadan ogeyn. Haddii aad ka faa'iideysto waqtigaaga, haddii aad kaga faa'iideysto wax kasta oo ku anfacaya, waxa uu noqonayaa waqtigaagu mid ka qiimo badan maalka. Maalka saynu ogsoonahay, haddii aynu helno maalka adduunka ugu qaalisan, waxa uu inooga baahan yahay waqti. Haddaynu eegno qofka ugu qaalisan adduunka ee hantida ugu qaalisan adduunka haysta, waxa uu ku bixiyay ama hantida uu ku helay waa waqti. Marka waqtigu lama helayo ama waxba lama helo qaaliya ilaa aad waqti geliso oo aad waqtigaaga qiimaha badan aad u hurto. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo arrintaa ka hadlaya tilmaamayana ayaa waxa uu yidhi: war qofkaaga bini'aadanka ah oo ka faa'iideysa shan inta ayna shan ku imaanin. Shantaa waxaa ka mid ahaa war intaad firaaqada iyo waqtiga haysa ka faa'iideyso inta ayna kugu imaan shuqliga iyo waxaad ku mashquusho. Waayo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu garanayaa qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay waqtigu. Waqtiga khasaa'istiisa waxaa ka mid ah ama waxyaalaha uu waqtigu gaarka leeyahay in haddii waqtiga ku soo mara uuna soo noqon. Waa khasaa'ista ugu weyn lana taaban karayo. Waqti ama daqiiqad cimrigaaga ka mid ah haddii ay ku soo marto weligaa dib kuugu soo noqon mayso, lagamana yaabo inay dib kuugu soo jeedo. Marka waxa aan weligaa kugu soo noqon doonin, wax haddii uu ku soo maro aadan dib u arkaynin, in aad ka faa'iideysto miyayna habboonayn, in aynu ka faa'iideysano miyayna ahayn. Marka wax kasta oo qaali ah oo mar la arag aynu adduunka ku tilmaanno waynu ka faa'iideysanaa, laakiin mar la aragga ama waxa qaaliga ah ee aan mar qura soo noqonin haddii uu ku soo maro waa waqtiga ee aynu ka faa'iideysano waqtiga. Waxyaalaha kale uu khaaska leeyahay waqtigu waxaa ka mid ah surcada ama waxa loo yaqaano degdega. Waqtigu degdeg ayuu u baxaa, degdeg ayuu kugu soo maraa. Waxaa loo baahan yahay degdega inaad kula dagaalanto, in aad degdega kaga faa'iideysto. waxaa la yiraahdaa alwaqtu kasayf in lam taqdachu qadacak. Waqtigu waa sida seefta kurka kaa marayso oo kale. Haddii aadan jarin oo aadan goyn, isaga ayaa kurka kaa jaraya oo ku maraya, korkana kaa maraya. Weliba haddii aynu nahay inagu muslimiinta ama dadka muslimiinta khaasatan, waqtigu waxa uu leeyahay ahmiyad gooniya ama qiimo gooniya ayuu u leeyahay. Waayo waqtigooda ay dayacaan waxa uu sabab ugu noqonayaa inay ka dayacanto aakhiradooda. Mar horena waynu soo sheegnay, haddii aynu waqtigeena dayacno waxaa dayacmaya cumrigeena. Cumrigeena haddii aynu dayacnana waxaa dayacmaya mustaqbalkeena iyo waxa aynu ka lahayn iyo rajadii aynu ka lahayn Ilaahay. Waayo haddii aad waqtigaaga dayacdo, waxyaalo badan ama fursado badan ayaa ku dhaafaya. Sidaas ayaad hadhow waxaad ku noqonaysaa mid hoogay oo khasaaray. Ogowna waqtigaagu inuu yahay waxa ugu qaalisan aad gacantaada ku haysato. Haddii ay kaa dayacanto daqiiqad ama sekin ka mid ah, waxaa kaa dayacmaya mustaqbal badan oo aan la soo koobi karayn. Waxaad kala ogaataa dadkan adduunka gaadhay meelaha sare, dadka dhintay ee laynoo soo wariyay taariikhdooda, ee ka gaadhay nolosha heerka ugu sarreysa ama waxyaalaha la gaadho ama guulaha la gaadho meesha ugu sarreysa, waxa ay ka faa'iideysteen waqtigooda. Waxa ayna fahmeen waqtigu waxa uu yahay ama waqtigu inuu uu yahay hantida quriya ee gacantooda ku jirta. Waayo haddii aad fahanto waqtigu inuu yahay hanti inuu ka qaalisan yahay oo gacantaada ku jirta, waxaad uga faa'iideysanaysaa wax kasta. Waqtiga haddii aad wax kasta uga faa'iideysato, waxa uu ku sababaya hadhowto inaad wax walba guul ka gaadho. Marka ogow waqtigaagu meesha uu kaaga baxayo, daqiiqad kasta oo cumrigaaga ku soo martana ka faa'iideyso. waxaa la soo wariyaa qisadaas oo ku dhacday dadkii gaadhay adduunkan
heerka sare ka gaadhay nin ku dhacday ama qiso laga soo wariyo. Waxay dhahaysaa qisadaasi: nin ayaa maalin maalmaha ka mid ah nin waddo maraya salaamay. Markaas ayuu waxa uu ku yidhi, ii istaag aan cabaar kula hadlee. Markaas ayaa waxa uu ku yidhi, haddii aad rabto inaan kula hadlo qorraxda dhakadeena taagan, haddii aad joojin karto oo aad ii qaban karayso waan kula hadlayaa, laakiin haddii kale kalaan iyo hadal toona kuu furi maayo. Markaas ayuu ninkii iskaga tegey isaga oo khasaarsan oo ninkii ka quustay, waayo ninkaasi waxa uu fahmay ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay waqtigu. Haddii uu wax maalayacni kaga lumo waqtiguna inuu noqonayo wax isaga ka daba yimaada oo isaga ku soo noqda. Mowduucina maanta intaas ayuu ku kooban yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.